بسم الله الرحمن الرحيم waxaan video ku bar doonaa sida loo sameeyo password recovery gaar ahaan markii aan haysano Cisco routers ka soo qad waxaad haystaa Cisco router waxa ku xiran password waxaad doonaysaa inaad routerkaasi aad gasho asaga uusan ku weydiinin password processkaas ayaa waxa loo yaqaanaa password recovery switcheskan waan qaadan doonaa laakiin dirsigan waxaan ku qaadan doonaa routerska sida loogu sameeyo password recovery steps kan waan wada arki doonaa intaan guda galin marka theory intaan guda galin lab ahaan sida loo sameeyo password recovery waxa marka hore laga maarmaan ah inaan wada fahanno theory ahaan processkaas qaabku u shaqeeyo kadibna aan lab ka sameeyno kaba soo qaad meeshan waxaan ku haysanaa routerkan waxaan ku magacaabnay Soma1 kaba soo qaad routerkan inuu yahay marka ugu horeysa aan soo daarnay router cusub inuu yahay ka soo qaad aanan wax configuration aanan lahayn markii uu routerka soo daarmo kuma weydiinayo password waayo configuration oo hore ma lahan marka inaga waxaan rabnaa in routerkan ku sameeyno password ku xirno password kadibna aan restart ku sameeyno kadibna uu na weydiiyo passwordka oo kadib aan aragna marka qaabka aan u gali doono routerkan asagoo oo na weydiinaynin password aan ku xirno marka laba password oo muhiim ah ee aan soo baranay config t marka waxaan ku xirnaa passwordka console-ka line console 0 password 123 kadib waxaan leenahay login exit ayaan ka leenahay waxaan kaloo ku xirinaa marka enable secret 123 labadan password hadda aan ku xirnay waan soo baranay course-ka CCNA gudihiisa aan ku soo baranay waxa ay kala yihiin labadan password hadda marka routerka maadaama uu daaran yahay dhammaan configurationada hadda aan ku sameynay gaar ahaan passwordadan oo kale iyo magacaan hadda aan ka bedelay oo aan siiyay routerka magaca Soma1 dhammaan configuration kan waxa hadda ay ku jiraan file loo yaqaano running configuration aan soo wada baranay arintaas haddii aan routerkan restart aan ku sameyno nama weydii doono password sababtu waxay tahay inaga wili maana save gareysan configuration kan markii aan configuration kan save gareysano salahan marka hadaan exit dhaho hadaan dhahno copy from running config to startup config oo macnaheedu ay tahay configuration ka aan wada sameyno passwordadan labadan password iyo magaca routerka aan ka bedelnay routerka waxaan leenahay configuration kaas maadaama hadda ay ku jiraan running config ay tirmi doonaan markii uu routerkan restart aan ku sameyno fadlan configuration kaas yiisan naga tirmin fadlan configuration kaas nooga soo qaat from running config kadibna noogu copy garay to startup configuration file startup configuration file kan loo yaqaano waa file uu routerka isticmaali doono markii uu routerka soo daarmi doono ama markii aan routerka ku sameyno restart ama markii aan routerka daarno uu booting uu sameynayo wuxuu aadayaa routerka file loo yaqaano startup config configuration ka ku jiro marka startup config ayuu soo qaadanayaa sida ay ku soo daarmayaa marka routerka hadda maadaama hadda aan copy gareynayno configuration keena markii routerkan aan restart ku sameyno uu aado startup config uu sida configuration ka kaga soo qaato startup configuration waxay inuu weydiin doonaa marka passwordan sababta passwordan waxaan ku save gareynay startup configuration file hadda enter dhaho hadda sida macnaheedu waxay tahay haddii hadda aan reload wada sameyno routerka aan ku wada sameyno waxaan wada arki doonaa inuu hadda ina weydiin doono passwordii aan ku xirnay hadda routerka uu soo kacay hadda enter dhaho waxay weydiinayaan marka password sababta ii weydiiyay passwordka maxay tahay configuration ka ayaan qaadanay ayaan ku save gareysanay startup configuration file oo intaas kaliya hadafkeen hadda muxuu yahay dirsigan hadafkeen dirsigan wuxuu yahay maadaama routerka inaga ognahay markii uu soo kaco inuu ina weydiin doono password waxaan rabnaa marka routerka inaan dhahno fadlan waxaan rabnaa inaan kugu sameyno waxa loo yaqaano password recovery waxaan ka rabnaa routerow markii aad soo kacaysid oo aad soo daarmaysid fadlan ha aadin oo configuration kaaga ha ka soo qaadanin startup configuration ka hadaan meeshan tagno fadlan startup configuration ka ha ka soo qaadanin configuration kaaga sababta haddii startup configuration ka uu ka soo qaato configuration kiisa waxaan ku qasbanaanina inaga inaan password galino meeshan ma naqaano passwordka hadafka marka aan leenahay waxaan sameynaynaa password recovery waa inaan routerka ku qasabno inuusan ka soo boot gareysmin ama inuusan
kasoo qaadan configurationka from startup configuration file waqtiga uu soo daarmayo. sidee marka aan kaga dhigaynaa routerka sidaas waa marka waxa dadkan ku baran doono hadda aan wada gelino passwordka 123 waan naqaan hadda passwordka wali ma iloobin 123 waxaa marka rabaa inaan idin tuso arrin yar oo muhiim ah show version haddii hadda meesha aan dhahdo show version oo enter dhahdo space markaad qaybta dambe timaado waxaad arkaysaa wax meeshan ku qoran ah configuration register kadib waxaa kusii qoran meeshan codekan wuxuu sheegaya 0x2102 kan aan soo copy gareysano aan copy soo dhahno halkan aan keensano codekaasi muxuu yahay numberkani muxuu yahay numberkan hadda meesha ku qoran wax kale ma aha haddii iska fiir meeshan haddii routerkaaga markii aad dhahdo show version hadda waxaan dhahnay show version waa wada dhahnay markaad dhahdo show version haddii numberkan uu halkan ku qoran yahay macnaheedu waxay tahay numberkan wuxuu cadeynayaa in routerkaaga markii uu soo kacayo markii uu soo daarmayo in uu configurationkiisa uu ka soo qaado doono from startup configuration ay ka dhigan tahay innaga hadda waxaan soo sheegnay oo aan dhahnay hadafkeenu wuxuu yahay darsigan inaan routerka ku qasabno inuusan aadin startup configurationka oo caadi iskaga soo kaco oo kadib aan galno routerka password la'aan asoonana weydiinin wax password haddii laakiin codekan oo halkan inoo yaalo macnaheedu waxay tahay routerkani markii uu soo kacayo wuxuu aadi doonaa startup configuration file waxaa rabnaa marka in inaga aan bedelno codekan oo aan ka dhigno code kale waan idin tusi doonaa waa hadda halkan kusii qorno laftirkiisa waa kan kaliya meesha 0 ah ayaa waxaan u bedeli doonaa 4 codekan markaad haysato oo sidan ah haddaan zoom gareyno halkan codekan oo ah 2142 halkan hadda ila fiiriso waa 2102 waa codeka asalka waa kan midkan ayaan ka dhigi doonaa haddii aan codekan aan ka dhigno versionka ama configuration registerka ee routerka codekan dambe hadda meeshan ku qoray macnaheedu waxay tahay fadlan routerow markii aad booting process aad sameynaysid ha aadin startup configuration fileka ee si caadi ah iskaga daaran sidee marka inaga aan routerka u gali karnaa oo aan kaga dhigi karnaa configurationkan sidee u bedeli karnaa waa sida marka processka aan wada fiirino kan aan halkan iska dhigno meeshan oo soo laabo doonaa okay routerka waa wada galnay kasoo qaad waxaa ku xiran password aan ka baxno routerka ma naqaan marka inaga passwordkan sheekada marka meeshan ay ka bilaabanaysaa router ayaad haysataa password ku xiran aadan aqoonin passwordkiisa step code waxaa sameynaysaa sida tan waxaa soo qaadanaysaa computer laptopkaada oo kala soo qaado waxaad ag imaanaysaa marka routerka adiga ku sameynaysid password recovery ma jiro marka router yaalo meel kale yani network kale ku xiran tusaale ahaan shirkadda adiga u shaqeyso oo kale haddii ay leedahay 3 branch router yaalo branch adiga aadan joogin kuma sameyn kartid password recovery sida u sameyso password recovery waxaa u baahan tahay inaad routerka ag joogtid inaad routerka u haysato waxa loo yaqaano physical access inuu routerka agtaada yaalo ka hardware ahaan router kaafa kuma sameyn kartid password recovery taas iska ogaw marka waxaa u baahan tahay inaad router ag timaado oo laptopkaaga soo qaadato oo kadib aad soo qaadato console-kaaga waa console cable aan soo qaadanaynaa waxaan ku xiraynaa marka computerka iyo routerka aan isku xiraynaa console kadib laptopkaaga ayaa furaysaa waxaad tagaysaa marka halka terminalka ayaan tagaynaa kadib waxaan leenahay okay hadda waxaan ku jirnaa marka routerka ayaan ku jirnaa laakiin waxaan kasoo galnay hadda console-ka caadi ayaan kasoo galnay weli wuxuu ina weydiinayaa marka password ayuu ina weydiinayaa maxaan sameynaynaa marka kan hadda waa step koowaad intaan kala haddii aan sameynay waa okay kadib waxaan sameynaynaa haddana routerka waxaan ku sameynaynaa restart ayaan ku sameynaynaa iskana fiir meeshan markii aan routerka restart ku sameynayno waxaan tagaynaa halkan physical configuration haddii aan tagno halkan physicalka ah oo aan sameyno sidatan waxaan deminaynaa routerka waana daarinaa mar kale iska fiiri kaba soo qaada routerka waa ag joogtaa console-ka ay ku xiratay terminalka waad furatay routerka demi soo daar kadib waxaa hore ka aadaa computerkaaga terminalkiisa aad hadda routerka intuu soo daaramayo marka waxaa taabataa marka break
keyboardkaaga ka raadi break taabo markaad break taabato waxaad galaysaa waxa loo yaqaan marka Roman configuration iska fiir meeshan hadda waxaan ku jirnaa marka routerka halka loo yaqaano Romanka halka marka waxay inoo soo wargelinaysaa marka ama halkan waxaan u soo galnay waxa ay tahay inaynu bedelno numberkan aan ku soo sheegnay oo ah configuration register hadaa xasuusato markaan dhahnay show version markii routerka uu daarnaa configuration registerkeenu wuxuu ahaa numberkan waxaan dhahnay wuxuu ku qasbiyaa routerka inuu ka soo kaco startup configurationka inaga marka waxaan rabnaa hadda inaan u bedelno routerka numberkan kale inaan ka dhigno sidee marka ka dhigaynaa console ku xiro routerkaaga daar inta uu daarmayo routerkaaga waxaad taabataa break taabo hadda aniga keyboardkayga sidaan u taabto break waxaan wada taabanayaa controlka ayaan qabtay iyo sidoo kale waxaan wada qabtay controlka iyo pause break halkay ku qoran tahay adina keyboardkaada inuu ka bedelan ayaa laga yaabaa keyboardkaada ka raadi ama internetka ka baar sida break taabka ama sida loo taabto break okay waxaad hadda rabnaa marka inaan bedelno configuration registerka waxaan soo galnay Romanka waxaan leenahay sidatan config ayaan taabanina oo configuration register 0x numberkan waa maxay marka waa 0x2142 0x2142 macnaheedu waxay tahay bedel ama configuration registerka u bedel 0x214 inter ayaan leenahay waan bedelnay configuration registerka kadibna waxaan leenahay reset ayaan leenahay oo macnaheedu tahay soo daaran mar kale inter ayaan leenahay hadda marka routerka uu daarmi doonaa break ma taabanayna hadda caadi ahaan haskaga daarmo laakiin hadda waxaan ku qasabnay inuusan aadin startup configurationka oo si toos ah si caadi iskaga kaco hadda saad u jeedid kan wuxuu noqday router cusub oo aanan wax configuration aanan lahayn iska fiir meeshan sida caadi aan u gali karnaa waxaan leenahay no waa kana router cusub oo kala waa hadda ila fiiris meeshan magaca hadii hore aan u sameeyno wuxuu ahaa Soma1 ayaan rajaynay inuu yahay hadda laakiin wuxuu ku soo kacay magaca router waa router aan wax configuration lahayn sababtu waxay tahay configurationka fileka uu ka soo qaadan lahaa muusan ba aadin marka hadaa dhahamka enable wax password inuu weydiinayo marka maxaa xala marka inaga configurationki hore aan haysanay sax password ayaa ku xirnaa laakiin configurationkaas waxaa kale kamid ahaa IP addresska routerka iyo configuration badan oo routerka aan ku sameynay macnaheedu waxay tahay marka configurationkaas oo dhan waan ka wada sabreynaa min ajli password aan routerka aan ku xirnay oo aan aqoon kaliya taa marka suuragal ma aha waxaa rabnaa inaga inaan configurationki hore soo ceshano iska fiir meesha configurationki hore ayaan soo ceshanaynaa waxaan bedelaynaa kaliya password ayaan bedelaynaa sidee marka configuration kor u soo ceshanaynaa intaan soo ceshan aan wax yar ku tuso hadaan dhaho show IP interface brief ila fiir meeshan routerkani ma lahan wax IP address ma lahan sababta aslan configuration dhan ma lahan oo configuration laan ayuu soo kacay waxa hadda soo wada ceshanaynaa configurationki hore ayaan soo celinaynaa markaan soo celino ila fiir marka waxaan arki doonaa inuu magaca isbedeli doono iyo sidoo kale IP-yadana labada interface-na in ay wada lahaan doonaan IP address sababtoo aniga routerki hore waxaan ku sameeyay laba IP address ayaan siiyay aan soo ceshan marka configurationki waxaan leenahay sidatan copy configurationka soo ceshan halku ku jiraan waxay ku jiraan startup config ay ku jiraan waxaan leenahay copy from startup config to running config hadda arintan waa cagsi waxaan leenahay router صح adiga marka soo kacisay startup configurationka maadan ka soo kacin oo maadan soo qaadan configurationka startup config laakiin fadlan hadda add configurationka startup config add configurationka isoo koobiyay waxay rabaan ha ahaadaan passwordii IP addresseska iyo dhan isoo wada koobiyay waxaana iigu soo shubtaa running config waa maxay running config waa fileka hadda inaga aan ku shaqeynayno maadaama routerka uu daaran yahay hada enter dhaho ila fiir waxa dhacay meeshan marka enter isla markii waxa ii soo ceshmay configurationki routerka magaciisa wuxuu ahaa router hadda wuxuu noqday Soma1 oo macnaheedu ay tahay in halku ka helay magaca Soma1 wuxuu ka helay configurationka uu ka soo qaatay startup config hadda dhaho marka show run hadaan dhaho show running config hadaan dhahno waxa arkaysaa passwordkan loo yaqaan enable-ka oo ku xiran routerka waxa ku had u jeedaa
line console-ka password ku xiran waa 123 laakiin mid ogaaw passwordka line console hadda waan arki karnaa waa clear text oo encrypted ma aha oo passwordkan marka aad aragto 123 hal meel ay ku qoran karto waxa dhihi kartaa passwordka console-ka ku xirnaa wuxuu ahaa 123 laakiin hadda ila meeshan ila fiiriso passwordkan enable-ka ama enable secret-ka maadaama inaga aan passwordka ku qornay ama markii aan passwordka sameynay aan ku sameynay command-ga secret macnaheedu waxay tahay passwordkan ma noqonayo marka password oo clear text ah waa password oo encrypted ah ama hashed ah marka hadda marka ma garan karno marka passwordkan asalkiisa wuxuu ahaa waxaan sameynaynaa marka hadda passwordkan ayaan bedelaynaa oo enable secret-ka waan bedelaynaa sidoo kale waxaan bedelaynaa passwordka line console-ka password cusub ayaan ku sameysanaynaa documentigaasna meel ayaan ku qoranaynaa sidaanan u iloobin mar kale waxaan leenahay sidatan config waxaan leenahay enable secret 444 sidoo kale waxaan bedelaynaa line console 0 password cusub ayaan sameynaa 444 sidoo kale kadib waxaan leenahay login had marka configuration-ka aan soo koobi gareysanay waxaan ka bedelnay passwordadii password cusub inaga aan naqaan ayaan ku sameysanay maxaan sameynaynaa marka waa inaan save gareynaa Soomaa waa inaan dhahnaa copy from running config to startup config ilaan waa bedelnay waxaan leenahay sidatan copy from running config to startup config sidoo kale hadda dhahno show version oo enter aan dhaho ila fiir meeshan configuration register-ka waa numberke waa numberka wata 4 waa 0x2142 numberkani wuxuu u taagan yahay routerka wuxuu ku qasbayaa si aan kusoo heshiinay in uusan ka soo kicin ama inuusan soo qaadan folderka ama configuration-ka ku jiro startup config tana hadda dhibaato ay inagu sameynaysaa oo hadda ma rabno inuu soo kaco without configuration file maxaa marka rabnaa waxaan rabnaa marka inaan routerka ku qasabno mar kale inaan dhahno fadlan ku laabo codekaaga asalka ahaa ama numberkaaga asalka ahaa oo ahaa 0x2102 sida usoo qaadato mar allaala markii aad boot process oo ku jirtid configuration-ka aad kaga soo qaadato from startup config waxaan leenahay marka sidatan waxaan leenahay config t kadib waxaan leenahay configuration register iska fiiri command-igu waa kan configuration register waa markii aan ku celinayno routerka asalkiisa waxaa leenahay marka 0x2102 ayaan leenahay waa 0x2102 0x2102 enter ayaan leenahay hadda dhahno marka show version mar kale ila fiir meeshan waxa uu ku oranayo routerka wuxuu ku leeyahay configuration register-ka hadda waa code-kan laakiin markii routerkan uu soo daarmo wuxuu isku bedeli doonaa code-kan kale yani inaga marka waxaan rabnaa code-kan ayaan rabnaa inuu asal ahaan u lahaado ama inuu asal ahaan ahaado routerka code-kan ayaan rabnaa code-kan waxaan u sameynay keliya sidaan u sameyno password recovery keliya hadda waxaan leenahay sidoo kale wr ama copy running config hadaan iska dhahno mar kale kadib waxaan leenahay marka restart ayaan ku sameynaa routerka aan wada fiirina marka hadda marka wuxuu sameyn doonaa routerka wuxuu aadi doonaa startup configuration-kiisa wuu soo qaadi doonaa wuxuu ina weydiin doonaa password in weydiin doono waa naqaanaa sababtu waxay tahay inaga ayaan ku xirnay passworddaas waa 444 haddaan dhaho enable kadib haddaan dhaho 444 haddaan dhaho show ip interface brief hadda ila fiiris meeshaan wuxuu leeyahay routerkan laba ip address-kani markii aan sameynay password recovery-ga dib umaanan sameynin oo inaga waxa aan bedelnay keliya waa passwordda oo configuration-ka routerkaaga oo dhan oo ay ku badbaadayaan oo kuma qasbanaanaysid inaad routerka dib configuration cusub ugu soo sameyso sababtana ay kugu qasabto arrintaas password aad ilowday keliya oo haddii aad passwordka ilowdo process-ka hadda aan dirsan kugu baray ayaa sameyn kartaa si aad usoo ceshato si aad u bedesho passwordka laakiin configuration-nadaada kale sida IP-yada waa ay ku badbaadayaan intaa marka aan gabagabeyn dirsiyan keliya waxaa meel ku qorataa arrintana haddii routerka aad ku sameyso password recovery oo aad process-kaas sameyso interfaceska routerka waxay ku laaban doonaan administratively down oo macnaheedu ay tahay interface-yadu waxay kaaga baahnaa doonaan
inaad mid kasta gasho oo aad ku sameyso no shutdown. haddaan wada galno interface-yada waxaan leenahay conft interface f0 interface giga 00 no shutdown. sidoo kale interface-kan waxaan leenahay no shutdown. haddaan dhahno show ib interface brief interface hadda maxay inoo yihiin marka app. hadda waxaan dhahnay haddii routerka aan ku sameyno password recovery oo aan soo ceshano passwordda ama haddii aan bedelno passwordka oo aan soo darno interface-yada routerkaas oo dhan waxay ku laaban doonaan administratively down. kaliya waxaa u baahan tahay inaad interface-yada gasho oo aad soo dhahdo no shutdown, laakiin IP-yadaada iyo dhammaan configuration-ada kale ee routerka u lahaa oo dhan oo ay kuu badbaadayaan oo kaama tirmayaan. sidaas waxaan ku sameynaa marka password recovery oo aan inagu isticmaalayna marka Cisco routers. waxaan darsiga kale aan ku qaadan doonaa sida loo sameeyo password recovery markii la joogo switcheska, waan wada qaadan doonaa step by step. waxaa kaloo aan baran doonaa sida backup looga qaato nidaamka ama operating systemka ee routerka ama switchka. waan tan wada qaadan doonaa intaan ku jirno course-ka CCNA-da. waxaa marka aan ardayga hadda ka rabaa marka inuu fadhiga ka kaco oo sameeyo configuration-kan router soo qaado labkan oo kala sameey routerka intaadan password recovery ku sameynin waana logic ahaan sida marka hore adiga configuration ku sameey password ku xir IPC configuration adiga aad taqaano ku sameyso kadib waxaa sameysaa marka password recovery process.